maanta shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu galay maalintiisii shanaad. isla maanta waa maalin kale oo lagu kala maqan yahay daal, rajo xumo, cadho iyo dhinacyada oo dhammaan dareemaya inay ku fashilmeen dadaaladii ay ugu kala dab qaadayeen labadii saaxiib ee shalay waa madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland oo hadda xaalkoodu taagan yahay allow sahal umuuraha. sidaynu warbixinteennii shalay ku sheegay, maanta ayaa qorshuhu wuxuu ahaa in ugu yaraan saaxiibadu ay isku dayaan inay adeegsadaan qaacidadoodii labaad ee siyaasadeed. maxay ahayd qaacidada labaad ee siyaasadeed ee ay adeegsadaan kooxda danleyda ah ee shacabka Soomaaliyeed u afduuban yahay? waa golaha wadatashiga qaranka, kooxda isku magacowday. kooxdan wejiga koowaad ee ah inay shacabka Soomaaliyeed u heshiiyaan haddii uu ka fashilmo oo sida hadda dhacday oo kale ay dhacdo, waxaa u qorshaysan in markaasi ay ku kala tagaan warburtiyeed dhalanteed ah si hogaamiye kastaaba uu uga baxo caburka iyo kulaylka markaasi uu ka dareemayo hoolka uu shirku ka socdo, oo uu ugu laabto goobtii iyo deegaankii isagu uu markaasi ka amarku taaglayn jiray. maanta waxay u muuqataa ama se ay noqotay in kooxdan ay lafteedu ku fashilantay inay marto jidkii iyo qaacidadii iyo sunna siyaasadeedkii ay dejisteen. hadda xaalku waa adag yahay, waa soo fadhi xun yahay. waxaa lagu fashilmay wejigii koowaad ee ahaa in shacabkan loo heshiiyo. muddo 2 sano iyo badh ah ayaa kooxdan golaha wadatashiga qaranku ay ku soo socdeen inay shacabka u heshiiyaan. ay soo samaysteen muddo kororsi sharci darro ah oo 1 sano ah. waxay isku raaceen gebi ahaanba dastuurkii ku meelgaadhka ahaa in la bedelo. waxay ku guulaysteen oo baarlamaanka ay gacantaa ku mariyeen iyagoo dabada ka riixaya 4tii cutub ee aasaaska u ahaa dastuurka. dhammaan howlgalladaas waxaa wada fulinayey oo udub dhexaad u ahaa labadan hogaamiye ee hadda ay ka dhex turan tahay, waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, axmed maxamed islaam. balse maanta saaxiibadii waa isku dhexsan yihiin, waxaanay qarka u saaran yihiin inay kala tagaan. haddaba maanta iskudaygu wuxuu ahaa in warmurtiyeedkaas la qoro sidaynu warbixinteennii ku sheegay, isla saacadaha dambe inay hogaamiyayaashu ku laabtaan xarumahoodii, in ugu yaraan shacabka Soomaaliyeed loo sheego qodobadan in lagu heshiiyey, arrimaha la isku khilaafsan yahay in dib laga xallin doono. qorshahan ayaa wuxuu u muuqdaa ama se uu noqdayba mid aan suurto gelin maanta oo isaguna fashilmay. mar kale ayaa dhinacyadu waxay isku dayeen in balay sameeyaan qorsho kale. villa Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo 3 maamul goboleed saacadihii hore maanta waxa ay ka fikireen oo ay qorsheynayeen inay iyagu si wada jir ah warmurtiyeed u soo saaraan oo uu ka maqan yahay markaan madaxweynaha lagu guuldaraystay in lagu qanciyo inuu qaato qorshaha quruxda badan ee laga soo diyaariyey villa Soomaaliya ee ay 3 maamul goboleedna ay ku taageereen. balse axmed madoobe taasi gebi ahaanba gaashaanka ayuu ku dhuftay. markaan waxay dhinacyadani qorsheynayeen in warmurtiyeedka la soo saaro gadaalna lagu qoro waxaa ka maqnaa madaxweyne axmed maxamed islaam oo uu socdo wada hadal sidii loogu qancin lahaa. qaab noocaas jidkii la maray markii la jiidsiinayay Puntland go'aanada golaha wadatashiga qaranka ayaa ay dhinacyada qaar soo jeeday, balse aakhirkii waxay u muuqataa in ay ku qanci waayeen saaxiibadii qorshahan dejiyey oo ay u arkeen in tallaabadan ay u baahan tahay in bal laga fikiro oo loo indhabadiyo. dabcan damacaasi weli ma dhammaan, balse saaxiibadan madaxtooyada villa Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo 3 maamul goboleed waxay isla qaateen arrintaas inay ka fikiraan saacadaha soo socda haddii ay suurtagal tahay oo ay ku heshiiyaan, ku qancaan. waxaa qorshahoodu yahay inay isla berri go'aankaas ku dhawaaqaan oo aanu axmed madoobe qayb ka ahayn. qorshahaas maanta waa lagu fashilmay
balse ilaa iyo hadda miiska ayuu saaran yahay. waxa kale oo iyadana maanta socotay dagaalkii iyo loolankii bannaanka. dhinaca axmed madoobe ayaa qorshaha isagana wuxuu yahay in uu maalinta berri ah uu ka dhoofo saacadaha hore ee subaxnimada garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. axmed madoobe ayaa waxaa u qorshaysan marka uu halkaas ka dego inuu afka furto oo uu shir jaraa'id u qabto, taasoo markaasi noqon doonta bilowga dagaalka labada dhinac. si kasta ha noqoto, waxaa maanta haddana iyaduna dhinaca kala socotay oo haddaba bilowday dagaalkii labada dhinac. dabcan dagaalkaasi hadda waaba bilowday iyada oo aanu soo dhammaanin shirkii golaha wadatashiga qaranka, balse la og yahay shirkaasi gebi ahaanba inuu fashilmay. waxaa keliya loo dhega taagayo waa in kooxihii shirkan qabsaday ay ku dhawaaqaan in shirkaasi lasoo gebagabeeyey. haddaba ka hor ayaa uu bilowday dagaalkii labada dhinac. durbe muqdisho waxaa lagu arkay siyaasiyiintii mucaaradka jubbaland ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu cagta hoostooda geliyey ee uu ku sandulleeyey inay axmed madoobe hoos tagaan, oo hadda loo fasaxay inay afka furtaan, inay ka fikiraan markaan kacdoonkii axmed madoobe xukunka lagaga tuuri lahaa. waxaa loo fasaxay odayaashii deegaanada jubbaland ka soo jeeday inay si toosa u hadlaan, inay sheegaan axmed madoobe diidmadiisa iyo macangegnimada uu ka muujiyey shirka in aanay ahayn dareenka shacabka jubbaland. jubbaland inay u baahan tahay doorasho qof iyo cod ah, isbeddel. kulanno fara badan ayaa durbo bilowday oo filla soomaaliya ay la leedahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee jubbaland labadooda dhinac, dhinacii gobolka gedo iyo dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ee awoodda badnaa balse xasan sheekh maxamuud uu jilbaha dhulka ugu dhuftay ee ka soo jeeda deegaanada jubbada hoose iyo jubbada dhexe, kuwaasoo fadhigoodu uu yahay dalka kenya, gudaha jubbaland iyo dhinaca caasimadda dalka. dhammaan xubnahaas iyo unugyadaasi ahaa isbeddel doonkii jubbaland ee axmed madoobe ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dembiga weyn ka galay ayaa hadda madaxweynaha ay dantu biday inuu dhinacyadaasi howlgeliyo. qaarkood maanta waa hadleen, qaar kale kulanno ayaa u socda madaxtooyada filla soomaaliya oo inay afka furtaan ayaa la filayaa siyaasiyiintaas. weliba markaan dhinacyada hadda saamaynta kule jubbaland aad bay u fara badan yihin. waxaa iyaguna qayb ka ah dhinacyada puntland ee laftooda ku sugan muqdisho iyo dhinacyada kale ee khaatume state ee iyaguna ku sugan muqdisho oo saamayn ku leh siyaasadaha jubbaland. dhammaan dhinacyadaas way dhaqaaqeen. waxaa kaloo maanta soo baxday puntland oo wakhtigan ka faa'iidaysanaysa saaxiibadii u heshiiyey inay fantashigo ku dhacday inay ka hadashay iyaduna. madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa markan si jees ah ula saftay axmed madoobe, isagoo tan fursad uga dhigtay inuu markaasi uu dhuumaha usii raaco siyaasadeed xasan sheekh maxamuud. markaan madaxweyne ku-xigeenkii puntland mudane lugatuur wuxuu sheegay in axmed madoobe uu ku saxan yahay inaan dalka doorasho qof iyo coda laga qaban karin iyada oo puntland iyo khaatume state ay ka maqan yihiin madashaas. dabcan intaasi puntland waa halka faa'iido ee ay ku raacsan tahay axmed madoobe iyo dhawaqa ay ka faa'iidi karaan, balse wax kale oo ilaa iyo hadda axmed madoobe ay heshiis ku yihiin puntland ma jiraan. seed puntland markaan waxay ka faa'iidaysatay fursadaha ay heshay. dhinaca kale ila ka agdhow filla soomaaliya ayaa waxaa laga soo xigtay in qaar ka tirsan hogaamiyeyaasha filla soomaaliya ay soo jeediyeen in hadda ay haystaan fursad qaali ah maadaama axmed madoobe uu ku sugan yahay muqdisho. kooxahaas iyaga mowqifkoodu fogaaday balse ka tirsan hogaamiyeyaasha filla soomaaliya waxay talo ku soo jeediyeen in ay hadda tahay fursad qaali ah in axmed madoobe hadda la qabto amase ugu yaraan la xayiro oo aanu muqdisho ka bixin tan iyo inta heshiis la gaaray. qorshahan oo dhinacyo badan loo dhigay oo ay ugu yar tahay in xayiraad lagu soo rogo madaxweynaha jubbaland ayaa ay soo jeediyeen, balse inta badan hogaamiyeyaasha filla soomaaliya iyo madaxda kale ee sare go'aankaas ma ayna qaadan, balse qorshe iyadana la sheegay in lasoo bandhigay oo uu miiska saaran yahay. lama oga qorshahan inay dhinacyada filla soomaaliya
isku raaci doonaan oo ay noqon doonaan kuwa xaqiiqa ah oo saacadaha soo socda marka uu madaxweynaha Jubbaland gaaro garoonka diyaaradaha ee uu ka duuli doono markaasi soo ifbixi doontaa iyo in kale balse waxay ka mid ahayd qodobadii maanta laysla soo qaaday kooxahan soo jeediyey arrinkan waxay daliil uga dhigteen in haddii Axmed Madoobe hadda aan lagu xayirin Muqdisho tan iyo inta heshiis la gaaray iyadoo weliba la kaashanayo beesha caalamka inay cadaadiskan qayb ka noqdaan in haddii ayna taasi dhicin oo Axmed Madoobe uu maanta ka duulo garoonka Muqdisho meel dheer laga dooni doono iyagu waxay qolooyinkani xil culays ka saarayaan halista ka iman karta Axmed Madoobe madaxweynihii Jubbaland oo intuu dagaal u soo diyaar garoobay wejiga soo bedeshay gadhka soo cadaystay gabi ahaanba ka baxay heshiisyadii uu filla Soomaaliya la galay isla markaana cadaystay dagaal toos ah isagoo markaa shuruudo adag oo waali la yimid oo dhinaca filla Soomaaliya aan laga aqbali karin haddii uu sidaas ku tago in uu halis weyn ku noqon karo filla Soomaaliya ayna waqti dheer ku qaadan doonto sidii markaasi hogaamiyahaas loo soo heli lahaa si kastaba ha noqotee taasina waxay ka mid ahayd arrimaha maanta laysla soo qaaday lama ogeyn la fulin doono iyana la fulin doonin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dalka dib ugu soo laabtay wasiirka ayaa dhowaan waxa uu baahiyey warar aad loola yaabay oo xaqiiqada ka fog wasiirku wuxuu sheegay in doorashada ka socota Somaliland ay ka mid tahay doorashooyinka nidaamka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana wuxuu sheegay in doorashadaas ay maamulayaan dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ahayd warbixin xaqiiqada ka fog oo uu bareeray wasiirku waxa kaloo sheegay mar kale oo uu ka hadlayay eedayn ay Soomaaliya u soo jeedinayso Ethiopia in Ethiopia hub ay soo gelisay gudaha dalka Soomaaliya ay dowladda federaalka Soomaaliya ay qabatay taasina iyaduna waxay ahayd mid xaqiiqooyinka ka fog oo aan dhicin haddiise ay dhacdo guul noqon lahayd dowladda federaalka Soomaaliya haddii hub Ethiopia ka soo galay dowladda Ethiopia ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya dabcan hub fara badan oo Ethiopia kaga imanaya Soomaaliya waa jira eedaynta dowladda Soomaaliya ay ku eedaynaysan waa sax oo way jirtaa balse wasiirku wuxuu markaan ku xadgudbay inuu xogo aan jirin oo aan xaqiiqo ahayn ku faano waxaana wasiirka markaan warkiisa dhinaca diblomaasiyadda kaga qurux badnaa isla wasiiru dowlaha dowladda federaalka Soomaaliya Ali Balcad oo isagu qaab diblomaasiyadeed ugu eedeeyay inay Ethiopia ugu horeyso dalalka hubka u soo dira oo hubka qaybihiisa badan uu Soomaaliya kaga soo qulqulaya dhinaca Ethiopia taas waa eedayn saxan balse marka ay gaadho ficil ay dowladdu qabatay oo ayna qabanin waxay la mid noqonaysaa mid dhaawac weyn u geysanaysa diblomaasiyadda dalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay in Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda iyadu maamusho doorashooyinka Somaliland loo ogyahay maamulkaasi horeba inay ugu dhawaaqeen inay ka go'een dalka Soomaaliya dhinaca kale wasiirku waxa uu ka hadlay oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya hubka kaga soo qulqulaya Ethiopia ay joojin doonaan ay xuduudaha dalka ay xiri doonaan taasna waxay ka mid ahayd ballanqaadyada uuna ay dad badan ay aaminsan yihiin amase xaqiiqadaba ku salaysan in waqti xaadirkan aanay awoodahaasi dowladdu lahayn loona baahnaa in horeyba looga shaqeeyo in dowladaha federaalka Soomaaliya ay qorshahooda ku darsadaan sidii ay u samaysan lahaayeen ciidamo awood badan oo xuduudaha dalkooda xidhan kara oo difaaci kara kana ilaalin kara khatar kasta oo amni darro ah oo dalka Soomaaliya ku soo wajaha dabcan dowladdan hadda xilka haysa shaqooyinkaasi maba qaban lamana filayo in hadda inta waqti xileedkeeda u harsan ayba ugu yaraan awood u leeyihiin inay qaban karaan sababta oo ah dowladdan federaalka Soomaaliya hadda awoodaheedu wuxuu ku kooban yahay caasimadda dalka ee Muqdisho dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay waxay bilaabeen olole ay kaga hortegayaan ama eedayn ay ugu jeedinayaan dowladda Ethiopia iyo noocyada faragelinta ee ay ku hayso dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa dhowaan sheegay
in dowladda Ethiopia ay cadaadis ugu adeegsanayso inay biyaha webiga Shabeelle ku soo furto Soomaaliya. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguna ku eedeeyey Ethiopia inay hub soo gelinayso Soomaaliya, isagoo wasiirku dheerba in markaasi hubkan ayba qabteen. wasiirka arrimaha dibadda oo hadda dalka ku soo laabtay isla markaasina isagu dhowr goor hadalladan xaqiiqada ka fog jeediyey ayaa hadda laftiisu waxa uu wajahayaa dacwad ama mooshin ay ka gudbiyeen xildhibaanada federaalka Soomaaliya. mooshinkan oo la rabo in xildhibaanada baarlamaanku kula xisaabtamaan xadgudubyo la sheegay inuu wasiirku uu geystay oo sharciga ka baxsan. iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa muuqata in wasiirku uu bixinayo xogo aan xaqiiqada ku salaysnayn oo markaasi ka qayb noqon kara dacwadaha xildhibaanadu ay ku soo oogi doonaan ee ka baxsan nidaamka diblomaasiyadda hufan ee caalamka. si kasta ha noqotee waxaa isaguna sii socda khilaafkii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Ethiopia. eedaynta ay labada dhinac isweydaarsanayaan dhowaan ayay ahayd markii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia uu wacdara ka muujiyey xarunta golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isagoo markaasi sheegay in eedo fara badan oo uu soo ururiyey dhinaca Soomaaliya dusha ka saaray in dowladda Soomaaliya ay xasiloonida geeska Afrika halis ku tahay, in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay yihiin kuwa mas'uuliyad darro muujiyey, ammaanka dalkooda gabay, dhibaatada dalkooda ka jirta, Ethiopia kula soo galgalanaya, xiriir la leh kooxaha argagixisada. dhammaan eedahaas ayaa uu wasiirku kulankaasi ka jeediyey, balse hadda dowladda Soomaaliya oo ka daba tegaysa hadalladaas ayaa iyaguna toddobaadyadii u dambeeyey eedaymo kulul u soo jeedinayay Ethiopia, in Ethiopia ay webiga Shabeelle ku soo faruurayso, in Ethiopia ay hub fara badan ku soo daadguraynayso dalka Soomaaliya, iyo in Ethiopia ay markaasi jebisay sharciyadda caalamiga ah oo ay doonayso inay dhul iyo bad Soomaaliyeed ay xoog ku qaadato. dhammaan eedeymahan ayay dhinacyadu isweydaarsanayaan. waxaa kale oo intaa dheer in dhowaan dalalka daneeya siyaasadda Soomaaliya ee saamaynta weyn ku leh oo ay ka mid yihiin Qatar, Turkiga, Maraykanka, Imaaraadka, dhammaan dowladahaasi ay markaasi ka hadleen khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. dhammaan dowladahan ayaa waxay soo saareen warburtiyeed diblomaasiyadaysan oo fariimo loogu kala diray labada dhinac. dabcan dhinaca Soomaaliya mar kale waxaa loo muujiyey niyad wanaag iyo in beesha caalamku ay garab taagan yihiin sharciyadda Soomaaliya ku difaacayso qarannimadeeda. dhinaca kale ee Ethiopia iyadana waxaa shirkan uga dhex muuqday qodobkii hore oo lagu celiyey oo ah in miiska wadahadallada wixii khilaafa ee jira lagu xalliyo, balse dhinaca militariga aan lala aadin. Soomaaliya waxaa hadda lagu eedeynayaa inay dhinaca militariga khilaafkan la aadayso oo ay xurufo ka dhigatay Eritrea iyo Masar oo colaadi ka dhaxayso. fariintan waxay Soomaaliya u tahay inay arrimahaas faraha kala baxdo, ay markaasi ku koobnaadaan sidii miiska wadahadallada xal loogu heli lahaa, iyadoo dhinaca kale fariinta Ethiopia ku socotaana ay tahay in iyaguna ay ugu yaraan dib u eegis ku sameeyaan heshiiskii ay la galeen maamulka Somaliland, taas oo iyadana ay tahay in Ethiopia ay iyadana la timaado qorshe la jaan qaadi kara wadciga hadda jira. labada dhinacba fariimahaas ayaa loo diray, balse inta badan Soomaaliya oo arrimahan diblomaasiyadeed mas'uuliyiintooda filla Soomaaliya ay guula ka dhigtaan, iyagu waxay u rogeen in markaani taageero buuxda ay ka heleen dalalka, balse dalalkan ilaa iyo hadda waxa ay ku taagan yihiin jidkoodii dhexdhexaadnimo iyo fariimo ay u dirayaan dhinacyada. xaqiiqadii haddiiba ay noqon lahay in dhinacyadani ay Soomaaliya taageeraan, lahjadda ama luqadda hadalka diblomaasiyadeed iyo go'aankuba tan waa ka adkaan lahaaya. waxaana fariin adag markaan loo diri lahaa Ethiopia oo lagu cambaaraynayo, isla markaasina lala aadi doono in qaraar ay ka soo saaraan golaha ammaanka iyo qaramada midoobay. horeyba beesha caalamku go'aankaas uma qaadan, haddana diyaaru ma aha inay noocaas oo kale ula saftaan Soomaaliya. sidoo kale qaramada midoobay diyaaru ma aha inay fiirsadaan Ethiopia oo qodobyo xadguduba, faragelin military oo toos ah, heshiiskan oo xoog lagu dhaqan gelinayo, taa lafteeda ee beesha caalamku ma aqbalayaan. balse go'aanka beesha caalamka ayaa meel dhexe taagan oo ah keliya labadan dal oo xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeyo, qaramada midoobay
beesha caalamka dowladahan saamaynta weyn ku leh gobolka geeska afrika keliya inay saaxiibadoodu heshiiyaan. waxaa isaguna socda dadaaladii uu turkigu hormuudka ka ah, iyadoo hadda ilaa iyo hadda xaalku uu yahay u kala dabqaad. dhinaca kale, taliyaha ciidanka etoobiya burhanu jula ayaa isaguna mar kale ka hadlay xaaladda soomaaliya iyo etoobiya. taliyaha ayaa markan sheegay dowladda soomaaliya inay tahay dowlad taag daran oo daciif ah oo ka talisa islamarkaana aaban si rasmi ah uga talin karin caasimadda muqdisho. taliyuhu wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya waqti xaadirkan ayna awood u lahayn inay dagaal la gasho dalka etoobiya, inkasta oo ay soomaaliya garaacayso, ayuu yidhi xukuumadda filla soomaaliya durbaan colaadeed, balse taasi lagu riixayo soomaaliya hoggaankeeda. taliyuhu wuxuu sheegay in etoobiya ay dubdhexaad u tahay nabadgelyada soomaaliya, islamarkaana ay iyagu yihiin kuwa dalka ka difaacaya xoogagga argagixisada. wuxuu xusay in haddii ayna taasi jiri lahayn, in aanay jiri lahayn xukuumad taag daran oo ka talisa caasimadda dalka ee muqdisho. wuxuu sheegay sababta hadda ay dowladda soomaaliya ku shaqaynayso inay tahay etoobiya oo u babac dhigtay islamarkaana ka difaacday xoogagga argagixisada. taliyahan wuxuu ku faanay in etoobiya ay tahay dalka ugu fara dhuudhuuban ee markaasi kooxahan khibrad iyo awoodba u leh inay la dagaalamaan, islamarkaana ay khatarahooda ka badbaadiyaan soomaaliya. wuxuuna mar kale ku celiyey in dadaaladaas iyo howlgalkaas nabad ilaalinta soomaaliya ee ay dubdhexaadka u yihiin in etoobiya ay sii wadi doonto, islamarkaasina ay dalka soomaaliya ka difaaci doonto oo kula dagaalami doonto kooxaha argagixisada.